انت اسكوك تكتين aanin iyo shan naag isku dishin fahmaysin anna kaligeeda ka aarsaday ciyaartu way socotaa wali in dhamaataa maneelna hooyaday ta dhashay ku jirta xitaa macafiyay jira caadi haabe way dil shalay waayo ani idas may xiran adeerkay xir shalay adeerka ma xiray sababtayna soo xiray fahma fiicani oo la dhigay mid ka mid ah xabsiyada Kenya kadib markii ay indhaha ka turtay gabar ay bilihii la soo dhaafay isku dagaaleen magaalada Nairobi. Dhacdadan argagaxa leh ayaa aad u qabsatay social media kadib markii Fahmo oo xabsi ka soo baxsatay ay la wadaagtay dadka kula sugan social media qaabkii ay indhaha aashitada uga shubtay gabadhi Soomaaliyeed oo ay horey isu dagaaleen iyadoona sheegtay in gabdho kale ay u dhaarsan tahay indhahana ka tuuri doonto. Haddaba daawada waxaan kula wadaagayaa muuqaalo kala duwan oo laga qabtay live ee soo gashay Fahma Fiicani iyo sidoo kale falcelintii ka dhacday iyadoona sheegtay ugu dambeyn in adeerkeed uu xabsiga dhigay. Inta muuqaaladan iyo sheekadan argagaxa leh aan kula wadaagin iyo dhibaatooyinkan ay ku kacday iyo sidoo kale Fahma Fiicani oo laga dheehan karay in iyadoo cabsan ay soo gashay live. daawada haddii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena Haldoor Media nagu soo biiro subscribe dhoo program balka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena like sar muuqaalka share garee lana wadaag saaxiibadaada mahadsanid. Fahma Fiicani oo ah gabar caan ka ah social media laguna xasuusto in bilo ka hor lagu soo qarxiyay barta Telegram-ka ayaa dagaalo xoogan gabdho kula gashay magaalada Nairobi iyadoona halkaasi jirdil xoogan loogu geystay kadib markii ay sheegtay in la isugu tagay rag iyo dumar ay halkaa ku dileen. Laakiin ugaarsi gooni ah oo ay ku bilowday haweenkii isugu tagay ayay shalay gabar Soomaaliyeed waxa ay wajiga kaga shubtay aashito taa oo sida ay sheegtay indhaha tirtay gabadhii. Waxaan kula wadaagayaa iyadoo Fahmo ka sheekeynaysa dhibaatada iyo qaabka ay gabadhan Soomaaliyeed u dhibaataysay iyo sida ay wax u soo gaareen. war ani macnaha jug ma li awaraba baayoy way dil shalay waayo ani idas may xiran adeerkay xir shalay adeerka ma xiray sababtayna soo xiray waa u xir kaal sheeg alla dadka kuugu xigoonba kuugu daran soo ma ogid warani dad ma qabee dhaafade anagana qabtaa Fahmo anaga dhana ku joognaa baayo maalin maxamed ku dhashtana waxa qabiil aqaana ma laani abta sheegaya gabar Soomaaliyeed anaga dhana waa qabiil taagan najmo anaga Fahmo anaga dhana ku joognaa baayo anaga dhan ku taagan Soomaaliya ka badan gabdhaha Soomaaliyeed ka badan gabdhaha dhan way ku jecel yihiin gabdhaha dhan way ku taageeraan gabdhaha dhan way ka naxaan wallahi inta aan gabar aqaano oo dhan wallahi way ku jeceshahay najmo Fahmo gabdhaha wallahi bilaa talaya ku gabar walba sida gabar ay la taxmal ay ganaxda saad ii jeceshahay walaal ay iga dhigtid markas ii xariirisid ay dhan ii jecelyiin wiilashana ma wada xumo inta xuno baastareenta eene waa idab darantiin wix baastar ayna aqoon mooleh wiil kale walaalnimo iyo isii sharaf ii haayane walaalkii baa waa jecelahay Fahmo wajigeyga macnaha marka la isku geeytay ay danbeen miyateeda kale meeshan Kenya la horta qof ah area wuxuu ugu dhahay hadda koor meeshan Kenya la lacag ka shaqeys of course lacagna ka shaqeysana maanta ogaad maxaa ka bedelayay banaanka ka jooga xabsi bidee dheel ma looga soo baxay dad ma ay soo bixisay marka baa laakiin qof qoraal isoo qoraalka saaraadin oo yaasuk aamus waxa sameeyay samee siman thank you aba Kenya waa loo meeyay shacabka wada sameeyay marka dad wanaagsan aan ku wada nool afar qof oo xun darteeda in qof loo jaafiyo waa qalad marka guys saaxiib ku celi mar kale sawir mar kale sawir mar kale hay inta ay ka daawanaysaa jini mudug thank you abo
maanta wax dhan ma la iisoo diri karo waxaan rabo wax ilaaliya maanta caaya rabnaa na soo caaya ama gabdhihii caayada waxaa waa ku neexnaa waa ku qurux badnaana ma fahanteen na soo caayas guys ja nima aarsan uurka hooyadiisa ku jira of course ani inta iskuulkay tagteen aanin iyo 5 naag isku disheen fahmaysiin anna anoo keligeeda ka aarsaday ciyaartu way socotaa weli in dhamaataa ma neelna hooyaday taa dhashaday ku jirta xitaa macfiyay jilaa caadi haabee dee qasari qaali tankii walaalayaalo horta dad wanaagsan oo ku jiro badan maasha Allah war intii nacab intii jeclaa ka badan la-aantiin abaar guys aad oo maasantiin inta gabadha fahmi jecel aad oo maasantiin dad wanaagsan atiin boqolkiiba dad wanaagsan oo badantiin afar qof oo xun darteeda marni la qabanayo afarta qof oo xun iska soo caaysan afarta xun oo caytameysana dadkayga ka badan ay ka jawaabayaan dhowmari inta ku jini jecel waa ku soo qabanayaan adeero sukay ku caawa ma ku jirtid bee buusetahay xaaladda ka may adigu hawshaada ka wada tagtay arrintan waxa waa kor baa u dhacaysaa tagacna markay soo tagtaa tagac baa soo wacna ma garan ma maqlaysaa diyaar may sida caadigaas kaga soo galan adigu arrintan iyo barnaamijkan waxbaa ka hadlin asxaabtaada waqti la qaado hadhow tagac way jirtaa markay tagac soo kacdo oo saabka kaa soo wacna ma garatay gaaleen marka waqtigaaga dhallinyaradaada iyo dadkaaga la qaado waxa waaye arrintaana kor booga bax ma garata sideeda okay yaa meel godaa ku jiraaye dadkaa tabcaaniga ma garatay sidoo kale fahma fiicanay ayaa layfka kula kulantay gabadha soo bandhigta muuqaalada anshaxumada ah ee loo yaqaano qaawan taa oo iyadana caan ka ah aaladda social media gaar ahaan barta tiktoka taa oo muuqaalo anshaxumo ah mar walba kusoo baahisa gabadhan ayayna uga sheekaysay dhibaatooyin ay kala kulantay eeladeeda oo doonayeen inay xirxiraan dhaawacyo soo gaaray wejigeeda waxay sheegtay inuu u geystay adeerkeed oo markaasi doonaya in iyada uu xabsiga dhigo gabadhan ayaa sheegtay in markii la daawo muuqaalada gabadhan ayaa sheegtay in xabsiga ay uga soo baxday lacago lagu fangareeyey kadib markii ay ku kacday fal argagax leh oo ay ku dhibaataysay gabar Soomaaliyeed waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkan haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena Xalana Media fadlan ugu soo biro subscribe dhoo faragan bell ka si aad u noqoto daawadaha kuwaad ee barnaamijyadeena la aksar muuqaalkan shirkadda la wadaag saaxiibadaada mahadsanid